warbixintan waxa ay noqonaysaa saaxiibayaal mid aan ku soo qaadanayno xulka wararka suuqa ee jira waqti xaadirkan balse marka hore ha naga iloobin inaad like saarto muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhawow qalbi furan mahadsanid liverpool wararkeeda haddii aan ku bilaabanno weli waxa ay doonaysaa laacibka khadka dhexe kooxda Borussia Mönchengladbach ee Florian Neuhaus laakiin ma awoodi doonto inay bixiso qiimaha ay dalbanayso kooxdiisa oo gaaraya 40 milyan oo euro. Neuhaus oo 24 jira waxa lagu soo waramayaa in kooxdiisa uu ku wargeliyay xiisaha uu u qabo u weecashada gobolka Mariseydka hase yeeshee kuma qasbi doono kooxdiisa Bundesligaha in ilaa ay ka iibiyaan Liverpool laakiin wuxuu bannaanka soo dhigay inuu danaynayo ka mid noqoshada kooxda macallimu Jurgen Klopp dullaankeeda dagaal kooxda Manchester City iyadana waa in marka hore gacanta ay ku soo dhigtaa wiilka dhaafay ee Grealish oo ay hor dhigtay kooxdiisa Aston Villa dalab ku kacaya 100 milyan waliba Aston Villa haatan waxa ay dhamaystirtay inay heshiis la gaadho kooxda Bayer Leverkusen oo ay ku doonaysay Leon Bailey waxayse marka hore doonaysaa City inay soo dhamaystirto dukaamaysiga ay ku doonayso laacibka kooxda Aston Villa kadibna waxay u soo jeesan doontaa in rabshad suuqeed ay ku furto kooxda uu fadhigeeda yahay waqooyiga London ee Tottenham oo ay ka doonayso halakan Man United iyadana si xikmad leh ayay u maalgelisay soo xerogelinta Rafael Varane iyo Jadon Sancho laakiin xiddi kale in lagu soo daro kooxda waxa ay ku xiran tahay in marka hore uu baxo Paul Pogba haddii uu joogo waxa la isku raacay United in gabi ahaanba uu sidaasi uu ku soo dhamaaday suuqeedii inkastoo weli iyagaba ay rajo ka leeyihiin sidii ay ku heli lahaayeen Trippier Arsenal iyadana waxa ay doonaysaa inay xiriir la samayso kooxda Inter oo ay kala hadasho suurtagalnimada lagu heli karo Lautaro Martinez Arsenal waxa ku qasbaya u dhaqaaqista xiddigani reer Argentina ayaaba ah in ay doonayaan isdhafinta Alexander Lacazette kaasi oo isagaba ay ka dabaliicayso Tottenham oo aaminsan inuu bedel u noqon karo halakan oo si weyn loogu siyaalaynayo u weecashada magaalada Manchester James Rodriguez isna wuxuu ka tagay caasimadda Spain xagaygii la soo dhaafay kadib markii Everton uu kula biiray Carlo Ancelotti hadda waxaa taagan warar kaleeto oo xan ah oo sheegaya inuu dib ugu laaban karo Santiago Bernabeu laakiin jirkan wuxuu caddeeyay inuusan danaynaynin inuu dib ugu laabto kooxda Real Madrid mustaqbalka Antoine Griezmann iyo Philippe Coutinho si weyn ayaa loo hadahayaa suuqa xagaygan Griezmann ayaa dhawaan lala xiriirinayay inuu ku laabanayo Atletico Madrid halka xiddiga reer Brazil la sheegayna kooxda reer Catalonia in isagana sidoo kale ay isdhaafinayso laakiin wargeyska Ice wuxuu sheegayaa in labada xiddigba meelna aysan kaga socon istaadiyaha Camp Nou waxaana ay qayb ka noqonayaan qorshaha macallimu Ronald Koeman ee xilli ciyaareedka soo socda haddii aad daawanaysay barnaamijkan ilaa iyo dhammaadkiisa waad ku mahadsan tahay waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman